السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كلنتي وعن ميل والباد جوجتين channel كداوني هسين و channel كي دكتور صدام حسين كسو دوادا مركلة iyo waqti dheer asku keen dambeysay aan saan jeclahay bariyahan waxa u badanaay dhanka TikTok-ga waxa waayo shaqadin way iga tabadatay marka laakiin had kadib I'm back maalin walba waan soo gelinayaa insha Allah saan filayo hadii ay shaqadii iga tambadinin marka maanta waxaan idin wada waxa waayo barnaamijkeena caafimaadka aalabaad noogu barateen mar walba in aan maalin walba ama barnaamij mowduuc walba uga hadalno cudurrada anaga Soomaali ahaan dhibayo ama cudurrada oo jirkeena saameeyo oo maalin walba aan la tacaalno marka maanta waxaan ka hadlaynaa waxa waaye ama maanta waxaan ka hadlayo waxa waaye barnaamijka loo yaqaan ama cudurka loo yaqaan polycystic ovarian syndrome-ka gaar ahaan dumarku buu ku dhacaa cudurkani waana wax u badan mar walbo in uu gabdhaheena daada oo maaragtay dhalmada ku jiro mar walbo in ay saameeyaan cuduradani waa cudurro oo gabarta markii ay soo qaangaarto ilaa iyo gabadha inta xilliga ay dhalayso iyo maaragtay ilaa ay ka dhalmo goosanaysa ku dhaco polycystic ovarian syndrome markuu maxaa waaye muxuu yahay waa maxay calaamadihiisa sidoo gabadhu ugu dhacaa maxaa waaye qaladaadka ka jira gabadha dhanka minka iyo maskaxiyan iyo maaragtay hormoonadeed qaladaadka ka jira iyo maaragtay sidee loo daaweyn karaa daaweyntiisa waa maxay iyo intaas in ka badan baan maanta ka hadlaynaa kusoo dhawaada barnaamijka haddaad videoga aad ka heshay fadlan like subscribe and share ka ilaawin channelka mar walbana comment ka ilaawin waa mahadsantiin haddana kusoo dhawaada marka polycystic ovarian syndrome ka haddaan sidaan horaan aan kugu sharxay waxa waaye cudur oo dumarka ku dhaca cudurkani mostly waxa qaldan gabadha hormoonadeed ayaa qaldan hormoonada gabadha markay qaldan yihiin waxa waaye waxyaalo badan ba la soo xiriiraya gabadha sida ogxaantii oo sidii laga rabay oo imaanaynin ama gabadhii caadada ay ku dhaceen intaas ay ka badan marka polycystic ovarian syndrome kan sidiis waxa waaye hormonal imbalance waa hormoonkii oo qaldan hormoonada oo marka ka qaldan waqti cudurkani oo maaragtay lagu arko hormoonada mostly qaldan waxa waaye luteinizing hormoonka follicle stimulating hormoonka iyo progesterone iyo estrogenka marka aan fiidana hormoonadan intay ka kala imaadaan labada u horeysa intay ka soo baxaan oo laga soo daayaa qanjirka laga soo daayaa labada kalena qanjir intay ka imaadaan sidee ay gabadha ay u saameeyaan marka luteinizing hormoonka aan dhahno gabadha bil walba caado bay heshaa caadada caadiga ahayd bil walba hadii gabadha ay helaysay normal caadada ayaa ah marka bish markay dhamaato gabadhii waxa jirkeeda waxa ka dhacaya in maskaxdeeda qanjir ku yaalo baa jiro la dhahayo pituitary gland-ka pituitary gland-kan wuxuu soo daayaa laba hormoon labadan hormoon waxa waaye hormoono badan buu soo daayaa laakiin labada hormoon oo cudurkani la socoto waxa waaye oo qaldan la socoto waxa waaye luteinizing hormoonka iyo follicle stimulating hormoonka wax loo yaqaan luteinizing hormoonka ayaa mostly dhibaato badan keeno follicle stimulating hormoonka waxa ka xog badan luteinizing hormoonka marka gabadhii bil walba markay caadada ku dhacayso qanjirkii luteinizing hormoonka buu soo daaynayaa iyo follicle stimulating hormoonka marka sida jirkii dhiigii soo raacayaan waxay imaanayaan meesha ogxaanta ay gasho sida loo yaqaan ovariska marka ovariskan wuxuu contain gareeyaa ama waxa ku jiro wax oo maaragtay saas u wareegsan oo maaragtay sac waxa waaye wax oo maaragtay xiran oo sida u xiran oo mature follicle loo yaqaan folliculeska ah follicle-kan waxa waaye meesha ay caadadii idil ay ka bilaabato gabadha marka ovariskan waxay soo daayaan ogxaantani waxa waaye follicles baa jiro oo gudahaasi ogxaantani waxaan oo idil u xil saaran marka x-kan inta la soo daynin ama ovarigan intuu soo daynin like ovumka waxa waaye luteinizing hormoonku waa in uu iyo follicle stimulating hormoonku waa inay meesha ay imaadaan ay dhahaan haye waqtigii waa la gaaray haye soo daaya marka wax ku dhacay follicle kan oo markii meesha ogxaanta ay galayso ama ay ka soo baxayso ogxaanta meeshii ovariska markii luteinizing hormoonkan ay imaado waxay sameynaysaa waxa waaye
maturity bay hagaajinaysaa oo cell follicle-ki mature buu noqonayaa, wuu soo bararayaa oo maaragtay wuu soo xoogsanayaa. Intaas markuu soo xoogsado ovaries uu dilaacaya marka follicle-ka markuu dilaaco ovum-ka baa kasoo baxaya. Ovum-ki markuu soo daayo waxaa imaanaya in uu maxaa la dhahaa minki u imaado ovarieski ovum-ki ama ogxaantii inay imaadaan minki. Marka minka markay soo gaaraan 7 maalmood camal ay meesha ku jirayaan ogxaantani ama eggskan waxay sugayaan 7daas maalmood shahwo ka imaaday ninka dhankiisa haddii ay gabadhii ay tahay gabar oo guursatay oo maaragtay oo guur ku jirto. Marka haddii ay wayso ogxaantani haddii wayso shahwo ama sperm ama fertilization wax loo yaqaano, spermka iyo maaragtay ovum-ka markay ay wada kulmaan fertilization-ki baa dhacay, gabadhii sidii bay uur ku qaadaysaa. Marka haddii lacala ay wayso ukuntani ay not fertilized ay noqoto oo like fertilization-ki uu dhici waayo, waxa dhacaya waxaa waaye ogxaantii in ay shed garayso. Shedding-ka waxaa waaye in ay dhiig ay isu bedesho oo iyadoo idil meeshii minkii oo idil uu dhiig uu ka buuxsamo, gabadha markay caadada waqtigeeda la gaaran ay sidii caadadii ay ugu dhacdo. Marka cudurkani siduu u dhaca iyo sida uu maaragtay dhibkii gabadhii uu saameeyo. Marka gabadha mar walbo ay bishii markii la gaaro oo waqtiga caadada ay ku dhici lahayd la gaaro, waxa ku dhacaya waxaa waaye gabadhii in maaragtay qanjarkii maskaxda uu soo daayo labadii hormoon loo yaqaanay luteinizing hormonka iyo follicle stimulating hormonka. Luteinizing hormonka marka sidaan horena u sheegay siday usoo socdaan waxay imaanayaan ovarieski ama meeshii ogxaanta ay ka dhalanaysay ama meeshii ogxaanta ay ku stoograysaneed ku jireen. Marka markay soo gaaraan halkani follicle-kii ayaa waxaa dhacayo in uu mature garaysmo uu soo daayo 2 hormoon laga rabay inuu soo daayo waqti walbo. Labadani hormoon waxaa waaye estrogen iyo progesterone. Marka cudurkan markuu jiro ay gabadha cudurkani ay qabto, follicle-kan wuxuu soo daynayaa oo kali estrogen oo kaliya. Estrogen-ka markuu soo daayo, shaqada progesterone-ka hormoonka kale waxaa waaye progesterone-ka. Shaqada progesterone-ka marka labadani hormoon shaqooyin bay leeyihiin, estrogen-ka iyo progesterone-ka. Progesterone-ka shaqadiisu waxaa waaye inuu maskaxdii message uu ku celiyo uu dhaha ama signal uu ku celiyo uu dhaha naga istaajiyo luteinizing hormonka iyo follicle stimulating hormonka aad soo daynihaysiin oo zaa'idka ah. Waa markii normalka ah qofka ay jirkiisa caadi u shaqeynayo. Marka gabadha markay cudurkan ay qabto waxaa dhacayso inuu luteinizing hormonki uu bato uu zaa'ida loo soo daayo sababtoo ah progesterone-ki ma jiro meesha. Progesterone-ka hadduu jirin maxaa dhacaya marka? Luteinizing hormonki baa badanaya shaqadiisa, waa zaa'id baa loo soo daynaya. Marka a lot of production of luteinizing hormonka waxay keenaysaa in uu follicle-kii uu bastagaraynin ama uu dilaacmin oo sidii ogxaantii u soo daayo ma dilaacmayo. Marka hadduu dilaacmin maxaa dhacaya marka in return gabadhii jirkeedii waxaa ku badanaya luteinizing hormonki. Luteinizing hormonkan hadduu kugu bato waxyaalo badan uu keenaya jirta. Marka 1 gabadhii caado kuma dhacayso. 2 waxaa dhici karta caadadii oo idil inay ka guurto. Waxaan galnay marka calaamadaha. Waxaa dhici karta gabadhii caadadii oo idilba inay caadadan ay isku arkin. 3 waxaa dhici karta gabadhii inay caado yar isku aragto, wax yar oo haddana caado qalqal ah oo caadadii oo wareerta ah. Marka sidee marka luteinizing hormonka hadduu jirkaaga ku bato maxaa kale uu keeni karaa? 1 waxaa kale uu keeni karaa in uu maaragtay sterogenesis waxa la hayo jirkaaga uu ka dhaca. Sterogenesis waa maxay? Inuu androgens-ku kugu bato. Androgen hormone waxa la hayo waaye. Androgens-kan hormoono waaye. Hormoonada inay jirkaaga ay ku bataan. Haddii jirkaaga ku bataan marka maxaa dhacaya? In ay a lot other processes oo jirkii maaragtay waxyaalo kale oo jirkii marka ayada laga rabin inay ku shaqeeyaan inay kor u kacaan. maxaa kamid ah marka process-yaashan kale oo jirka qofka normalka uu qabin qofka marka gabadhan markay polycystic ovarian syndrome ay qabto oo kor aada androgenes kan ama androgen kan oo ku darsamay waxay keenayaan in uu ma aragtay jirkii kale oo sida pancreaska loo yaqaano in uu a lot of insulin uu soo daayo
insulinka waxaa waaye marka hadduu insulin badan uu jirkaaga ku dhaco gabadhii inay sokortiina ay kor u kacdaa dhici karto. labo waxaa waaye gabadhii androgenskan hyperandrogenismkan androgenska hadduu gabadha uu ku bato waxay isku arkaysaa wejigii oo timo ugu soo baxa, because androgenka mostly waxaa looga tirigalay in ragga lagu arko. labo hyperandrogenismkan waxaa kaloo keeni karaa gabadhii oo finan badan kasoo baxeen. gabadhii marka in ay finan badan ay kasoo baxaan, wejigiyo idil timooyin ay kasoo baxaan. calaamadaha kale oo polycystic ovarian syndrome lagu garan karo waa maxay? gabadhii inay caadada ay ka wareerto, gabadhii marmar qaarkood in sokor lagu arko. marka haddii ay follicleskan ay ma aragtay ogxaanta meesha kasoo baxayaan ay ogxaantii ay qaldanto, gabadhii marka iskaan lagu hagaajiyo wax lagu arkayo waxaa waaye wax la dhahayo cystiga waxaa waaye follicleski oo mature garaysmin ama sidii laga rabay oo u dilaacmin. marka iskaanka markii la saaro gabadhii waxaa lagu arkayaa a lot of cyst. gabadhii waxaa lagu arkayaa markii iskaanka la saaro a lot of cyst oo maaragtay jirkii oo idil meeshii ovarieski oo idil in ay cyst badan ay tahay. cystiga marka waa maxay? waa ovarieski oo mature noqonin. marka calaamadaha lagu garan karo waa kuwa oo kooban. intaas aan sheegay gabadhii oo caadadii ay ka wareertay, gabadhii oo maaragtay caadi yar isku aragto, gabadhii oo maaragtay caado dhan aan isku arkin, gabadhii oo finan wejigii oo idil ugu soo baxa, gabadhii oo maaragtay timo oo jirkii ugu soo baxa. marka waa maxay marka waxyaalaha khatarka ku ah cudurkani ama waxyaalaha khatarka ah oo la xiriiro oo cudurkani? kow, gabadhii haddii ay qof sokor ay qabto ay tahay. labo, haddii gabadhii ay tahay maaragtay qof weight badan leh inay tahay iyo cuntooyinka qaarkood. marka cudurkani complicationkiisi ama muxuu gabadhii halis uu nolosheed u gelin karaa ama maxaa waaye khatarta la socoto cudurkani? kow, gabadhii in uu dhalmo la-aan uu ka dhigo ama infertile uu ka dhigo gabadhii ayaa dhici karta. gabadhii in ay maaragtay uurkii uu kasoo lalaabto baa dhici karto, iyo maaragtay waxyaalaha intaas kasii badan oo gabadhii oo maaragtay sokorteed uu kor aado, blood sugargeeda uu kor aado, intaasi inka badan baa ku dhici karta. marka maxaa lagu daaweyn karaa marka cudurkani? siyaabo badan lagu daaweyn karo baa jirto. kow, gabadhii haddii caadada ay ka qaldan tahay waxaa la siinayaa wax la dhahayo oral contraceptive pillska ama combined contraceptive pillska sida family planningka waxyaalo loo isticmaalo, kaniino loo isticmaalo la siiyo. laba, waa in ay gabadhii exercise badan ay hagaajiso maadaama ay hilibkaasi iska rido. saddex, waxaa jirta daawooyin oo minka ku shaqeeyo oo maaragtay kobcinta uurka iyo waxyaalo badan ka saacideeyo, vitamino badan ah. afar, waa in la siiyo gabadhii maaragtay metforminka wax loo yaqaano, daawooyinka sokorta loo isticmaalo waa in la siiyo maadaama ay gabadhii waa inay qaadato waxyaalaha loo yaqaano metforminka, daawooyinka metforminka la dhaho. metforminkan sidiis gabadhu wuxuu ka saacideynayaa in uu maaragtay sokortii jirkeedii uu manage gareeyo, sokortii oo jirkii kor hayga ah, iyo maaragtay hyperandrogenismkan asagana inuu hoos u dhigo because of high insulin levelka oo jirkii inuu uu yareeyo. marka gabadhii intaasoo daawo bay qaadan kartaa. burooyinkaana ayagaba haddii daawooyinkii ay qaadato gabadha waxaa dhici karta burooyinka caadadeeda inay normal ay kusoo laabato. marka haddii aad isku aragtay calaamadahan iyo calaamo la xiriiro waxaan sheegay, calaamado kamid ah waxaan sheegay, fadlan mar walba waxaad isku daydaa dhakhtarkaaga inaad la xiriirto, aad mar walba aad la sheegarayso sida aad dareemi haysid. marka cudurkani waa cudur la daaweyn karo, but mostly wuxuu u baahan yahay in care badan la siiyo qofka oo maaragtay il gaar ah lagu hayo. marka waxyaalahan marka cudurkani waa cudur oo la socdo dumarkeena Soomaalida hadda hadaad aragtid 100 dumar ah 20 kamid ah inay cudurkii ay qabaan dhici karto ay dhibkani uu haysto. marka cudurkani waxyaalaha la xiriira sidaan horaan aan kugu soo sheegay acnegaas wajigaas oo finanka badan ka soo baxa, timahaas oo wajiga ka soo baxa, waxaa kaloo la xiriiro
maaragtay dhibibkaas oo maaragtay caado wareerkaas iyo waxyaalo badan. Marka wax ugu wanaagsan waxaa waaye in aad daawadii aad ka gaartid. Asxaabay, waxaan soo gaarnay barnaamijkii gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka. Fadlan meel walba aad joogtiin channelka ka ilaawina subscribe, like and share-ka. haddii aad videoga aad ka heshayna meel walba aad joogtiin share-ka ha ka ilaawin, comment-gana ha ka ilaawin videoga. Waxaan idin rajaynayaa sidaa iyo nabadgelyo.